channelka daawanaysiin waa Marish Beauty channel anigana Marie waay soo dhaw taan ugu cusub tahay welcome hadaa hore noola joogteen aad iyo aad u mahadsan tahay muuqaalkan sida u jeedin bataytarka sida soo aragteen waxa waay horta muuqaal asweyseen dad badan oo adinka idin kamidana ay iga soo codsadeen asagoo full ayna u soo galiyo okay so dadka aan la socona raba wax yar inaan fahansiyo waxa jirtay horta arin xoogaa ma aragtay labada maalin la wadwaday horta war la umbehe way ka caakaro fahanteen yani waxa uu gala jeedaa wax la qarqariyo waxa ka wanaagsan wax xarunta banaanka inuu keeno waxa jirtay in habeen dhexdaas ani iyo walaalkay baabaji asla galnay live TikTok horta live TikTok waxa problem badan u keenay dad badan ku fashilmay because sikadiisa waxa lagu weydiinayaa su'aal live ku jirtaa waxa laga yaabaa inaad meela ugu baxsta ay garan weyso because marka muuqaal duubaysay muuqaalkii su'aasha waa ka jar kartaa dib loo xumaato haddii qofku wareysana waxa jaanis waxa haysta aad hadid war waxaan iga daa camal u goo camal su'aashan laakiin live marka ku jirtay waxa waaye lagaaga naxsado de waxa rabta ku jawaabaysa ma fahanteen anyway horta waxa waaye ani walaalkay live ku jirnay su'aal waxa jirtay marka uu igu xijiyay okay aan dhahay waa ina 20 kun keensataa 20 kun adi calaa xaasil markii ugu dambeysay uu gaaray su'aashii weydiiyay su'aashii marka si caadi ah uga jawaabay oo adinka buu arki doontiin inta aragtana way arkeen waxa jirta marka clip yar oo adi 15 second camal ah oo la soo jaray oo TikTok la keenay okay clipkii marka sida saxda ahayd wax uma soo qaadanin yani sida saxda aan ka hadlay wax uma soo qaadanin qayb yar ka soo jirtay clipkii waxa daawatay ilaa adiga 400 oo kun dad gaarayo arrintan maxaa waaye arrintan ka soo hadal maadaama live-ka dad yar ay daawanayeen oo qaday u bataan kun qof aan ka badnayn muuqaalkiina uu gaaray 400 oo kun yani dadkii confuse ku noqdeen meel u qaadanay garawaan soo waxaan jeclaystay inaan asagoo full ay idin soo galiyo inta rabtay inay arrintan wax ku ogaataan ay ogaato dadka waxaan buunbuuninaya ama YouTube-yada inta samaysteen taytalada khaldan soo qoraayana ilaahay ka cabsada idin leeyahay irsaaqad xalaal ilaahay meel kale idin ka siiyo sidaada wax been wixii kugu soo gal waxa ku matarayaan adduunkaaga iyo aakhiradaada waa ku weynaysaa adiga waxa la qaatay muuqaalka xataa at least runka sheeg waxa soo gelinaysa inta markaan ka soo tago guys ana ka dad walaalaanahay wada shaqeyn aan naga dhaxayso qofka bili aadanka wuxuu leeyahay family wuxuu leeyahay nolol bareefad u ah oo asaga qusaysa yani waxyaabaha adinka aad sameynaysiina dad badan laga yaabaa noloshooda bareefadka inay dhibaato u geysato aniga ha ahaado walaalkii ha ahaado marka waxa idinka codsan lahaa please ma badaynaysaan at least hadina daynan xataa kastoo naga yareeyo ma fahanteen Soomaali markii la waxa iga daay ugu daraanbo ma joogi karaan laakiin mar walba waxa wanaagsan runta oo inaad ka hadasho clipkayga qaado sidiisa ku soo gasho laakiin ha jarjarin ha edit gareynin waxa ku sameeynin sidiisa ku soo gasho that's good idea waaye waliba dadka muuqaalada noocaas qaata oo sidooda ku soo gashtana waa bogaadinaya taas waxa laga yaabaa dad aan hore adiga ku arkay inay intay arkaan YouTube-kaaga soo aadaan subscribe ku saaran ay kula socdaan yani dadkaas shaqo fiican ay qabanayaan laakiin dadka wax edit gareynaayo wax kala jarjaraayo ma aragtay waxyaabaha khaldan sameynaayo aan dhihi lahaa kala xishoodo walaalayaal wala kala xishoodo fahanteen intaas ay idinka sii tagaya muuqaalkana dhameyso insha Allah mahadsantiin bye waxay tiri markii aad la imaadan 20k anigana waxaan ku dhahay waqtiga ugu dambeeyaba Allah ka dhigay waa la imaan doonaa horta caawa waa nala ciyaartay si la yaqaan nala ciyaartay si qof looga badiyana waa igaga badisay aniga ma diidayo guuldaradii igu dhacday caawa waliba tira intan ka badana guuldaro igu dhacday wixii igu dhici jiray wax ka darana igu dhacay ma sidaan filayna ma sida ay noqotay taas waaba ka soo tagayba zero ma sha Allah saaxiibkayga master aad master igu sii wad marka waxaan ku weydiiyay dadka markii ay isla joogaan isku badan yihiin waqti isla wada qaadanayaan dadka inta badan way isku xantaan markii laga soo tago taas wuxuu ku dhahay sabna amaan adigana waa diiday inaad amaanto markii adan laga soo tago wuxuu amaanayay gabar sabna inay eedaan jeclahay waad ka xanaaqday iyadoo duuban waxa la soo dhigay TikTok-ga YouTuberada qaarna waa ku arkay way soo qaadanayeen
qofka qof uusan jecel kala dhexeynin qofka qof uusan u damqanaynin qofka qof uusan dareemaynin ana hadda waa samayn karaa inaan jeeg dhaho aan saaxiibkayga waaye tusaale ahaan hadda adiga waxaan dhihi karaa waa jeclahay maariish waxaan ku jeclaan karaa jecel walaaltinimo haddii xataa wax ay dhacayaan oo kalete uma dareemi kari jecelka walaaltinimada wax loo dareemaayo jecelka saaxiibtinimada looma dareemo jecelka saaxiibtinimada wax loo dareemaayo jecelka dhabta ah oo dareenka ah looma dareemo annaga sida aan dareemayno waxaan u aragnay in si dhab ah adiga jeeg dhankiisa aad ugu badan tahay sababta mar ma aha 2 mar ma aha 3 mar ma aha 4 ma aha tiro boqolaal ka badan waxaan aragnay shakhsiyaadka isjecel waxa ay isku dareemaan oo kale in mararka qaar dhexdeed ay imaanayeen erey qaldan oo kale markii loo jeeg inaad ka kululaanaysid inaad u damqanaysid waxaan u aragnay marka aniga iyo shacabka igu xiran iyo wixii magaalada jooga oo dhan adduunyada inaan labadiin isjeceshihiin oo waxa aan moodna ayaa sax ah mase maladeena ayaa been ah inkastoo waxa aad dhehaysid ay yihiin wax ilaahay subxaanahu wa tacaala niidaad ugu daalacanaya anaga bini aadanaan nahay cilmi qeyb ma noqon karno marka jeeg waxyaabaha aan ka dareemayna dhankiina maxalwadiya noo soo dhow goosiyaan sifaysanaa adiga jecel dhab ah maad u qabtaa jeeg intaas arbaan nooga jawaabto sida daacadoo ilaahay kula ogyahay nooga jawaab ها وجعل هاي لكن وسي ولا ما وجعله جعلك أشيء يتعصر ودنا مش ميالان ما فهمتي جاك ولا الكي واي إن قرب كي واي قف آمت خانا مانتي كدور صناعي مجرو ما أنا يكرت محا وحنا قدا no وحن is just a game واي game kana wuxuu xaraarada yeelanaa markii la isku lulaysto la isku qayliyo la isku xanaaqo markaas uu yeelanaa ma fahantay so anaka just xaraarad inaa u yeelo mararka qaar aniga xataa wiilasha wax ii gadaa wuu caayaa wuxuu dhahaa maxaa waay nimankan oo saan yani wiilasha wax ii gadaa wuu caaya wuu aflagaadeeya asaga sidoo kale gabdhaha wuxuu gadaaya hadalla waa dhadhahaa laakiin waxa waa wax gameka only ku saabsan ma fahantay ma ahan wax qalbiga ka yimaade ma aha waa wax just dadkeena aan waqti kula qaadanayno aan entertainment kugu samaynayno because mar walba mataqaanaa uu gameka shidan yahay oo hadalla kulul la isku rulaysanaayo waxa waye gameka wuu sii shidmaayaa yani si fiican ama dadku noo daawanayaan laakiin intaas waay dadka soomaalida waxay dhahaan dhagoolka ninka dhagoolka wuxuu yidhi dadka oo dhan farta maxay igu soo fiiqaan inaan dhagool ahay may og yihiin annaga waxaan nahay dad waayo arag ah oo maskax ilaahay siiyey bini'aadanka markii lagu dhahayo waa la cadaabaana waxaa lagu cadaabaya wax kalama aqliga waaye ilaan xoolaha aqli ma lahan lama cadaabayo annaga laakiin aqligaan leenahay aqligaana lagu cadaabaa waa ku oghay aqligeena saniimka wuxuuna siiyey marka indhahaaga fiirinay waxaan u aragnay indha dareen caanshaq inaad ku fiirinayso dhanka jeeg fiiraya adi waxaa wada afkaaga qalaqaad ilkaaga hal mar hadda su-aasha markaa ku weydiina iga jawaabaysid qaabka ad igu jawaabaysa xataa waxay dareensiinayeen markaa dhahdo kale waa haa waa jeclahay eraya ku adkayso ahaa laakiin erey gadal ka dhad xoogaa waa degtay annaga marka wax turjumayno waxaan fiirinaa qofka markii la dhahayo kale tusaale tulisya taraa war fiiri maxaan ka kala dhexay ninkan iyadoo aabaheeda ku gubaysa waxay leedahay haa waan jeclahay ها وان جعلها وحول بيان سينا قف وديك انا مركي بينك تا ولا دريمها لكن قابك ودهده وان جعلها لكن waxa tiri si walaaltinimo waa ku nasatay xataa xoga isbeesa u dhaxay waan jeclahay okay waa ku nasatay hadan isbeesa u dhaxay waxa dhageyso fiiri baabajay laakiin adi hal su'aal ay weydiisay su'aashana waa kaaga jawaabay waa wiil walaalkaya even hadaa isjeclaan wax ceeb ma lahan wiil iyo gabar walba isjeclaan karaan laakiin muhiimadu waxa waay horta labada qof wixii ka dhaxeeya haddii mataqaana ay banaanka soo dhigtaan waa wax qarsoon waay ma dad isjecel ma qarsoon waaya mu masirtaa markuu gabar kale iyo wax way iska imaan mu masirtaa waaya mu masirtaa ya ma jirtaa hal martaa u masirtaa adi no aniga fiiri qofka saaxiibkay waaye يعني walaaltinimo iyo saaxiibtinimo naga dhaxayso in agteeda lagu caayo ama lagu xanto ama qof wax khaldan ka sheega marka arko of course waa ka xumaanaya adigoo maanta agtaada in wiilo lagu caayo ma jeclaan lahayd ama wax looga sheego no masayr meesha ma yaalo laakiin waxa yaalo wax qofka hadduu walaalkaa yahay aadan mataqaana aadan jeclaysan in lagu sameeyo ma fahanti maya xoogaa waxaan arkay inaa masayrkaas bisaan raba inaan wax ka ogaado
maya masayr ma jiro masayr oo yacni qof laba qof oo isqabta camal ama laba qof oo wax ka dhexaysa hal camal mar masayr hal ugu mar ma soo masayr dhawaa kartaa hal mar xoogaa shaad ma soo dhawaa kartaa hal mar adoo hay qaali haddii aan qaldaran asxaabteeda su-aasha markaan bilaawaayey iyo markay iga jawaabsa indhaada isku fiira hadda indhaada way gadutay waa isbedeleen baabajay film ma turjumaysaa mise anaa ila hadlaysaa wallahi saddex cadnimo wallahi indhahaaga way isbedeleen ana waxaan aqaan ana fiiri dadka waxay dhaha mataqaana marka qaar baabajay waxaa sheegtay way dhacaan camal tusaalaan waxaan iska dhahaa wixii waa iska noqda ana cilmi qayb malay ma aqaani laakiin qof waxaan ahay ad waa kaa weynaa jeeg waa kaa weynaa waxaan fahmi karaa aan midaa kuu sheegaaday ka soo qaad waaba isjecelnahay haye kaba soo qaad lacala haddaa isjecelnahay xataa yacni wax uga xanaaqaya ama waxa indhaha ila gaduudanaya meesha maba taalabo easy jawaab su-aala ay weydiisa waa kaaga jawaabay daarisid معناها وحي لنا قط متقنا وحي حما لك حما دا موقت وحي مايا معناها وحي لنا قط اباي واحد فيري واحد gudaha aad ku haystay muddo aad qarsanaysay markii banaanka aan keenay xanuun ku geystay camal in noqdo indhahaaga no igama waa jeclaan kartiin waa aroosi kartiin waa caadi midagayso xanuun meesha ma yaalo wax xanuun jacayl marba hadday imaato iyo laba qof oo xiriir ka dhexeeyo xanuun meesha ma yaalo iyo wax laga xanaaqa midnaba ma fahanti naxariisaa bataalo iyo jacayl wax ildahaa bataalo soo ma soo ana hadda su-aasha ay weydiisay waxa maxaa idinka dhexeeya ma jeceshahay walaaltinima u jeclahay waa respect garaa intuu ii saaran yahay qof aan ku doorsanaya ma jiro daarsi mararka qaarna uma sirtaa maaho maya haga xumaana maya xoogaa qaabkaas u arkayno inaan uma sirayst no aragtidaada waaye bilaadanka isku aragti maaha dadka qaar hadda waxay u arkaan oo kaleeto inaa mararka qaar markaa la kaftamaayo maxaa u bahdile ay ku dhahaya dadka qaar waxay u arkaan inaa bahdilaayo adiga waxa u aragta inaa u masayraayo soo bilaadanka waxa waa ilaahay wuxuu siiyey aragti kala duwan ma fahante laakiin anaga kolley markaan hadda aan ku wareysanayay haddayna waa kaga codsaday markii las wareysanaayo wareysigaan horta wax yar kaaga sheegaa waa aragta amanaynaa awokaatayaasha markay wax wareysanayaan waxay damqinayaan qofkan wuxuu ka xanaaqi karo iyagoo ka helayaan dulduleelo yar yar erayada oo dhihi doono mase waa beentay aniga gabar walaasheedaa tahay maariish caawa ka hor labadeena ma wada cayaarin caawaan wada cayaaraynay aniga ma raba geemkeyga inaad u aragta geem micnaha ciqaab ma rabo ani caawa haddaa wax kasta igu anaa waxaan ku idhahda fiiri anaa ku siiye jaaniskaas waxaan ku dhahay 20k haddaa ku badisid waa kaaga jawaabaa 20k inaa ku badisid waxaan sugaayay 5 geem oo aan ku kala tegina last game 5 game aan sugaayay inaa 20k 25k aa ku badisay ashina waa kaaga jawaab hadda anaa foora kugula niyahow bes naga waayahay ma las dhihi karaa maadaama 20kii ay ila sugaysay adiga waa rabtay culuskan qalbigaaga hayay in aad fududayso maya waxaan rabay asxaabta adiga kuu soo qoraayo su-aasha weydii dhahaayo inaan ka qanciyo aan uga jawaabo because ayagoo su-aashii sugaaya inaan anaga kala tagno xoogaa waxay ila noqotay ceeb ma fahan waaya markaad ii jawaabtay iyo intaad ii jawaabin ka hor farqiga u dhexeeya wax ma iga sheegi kartaa no farqi uma dhexeeyo caadi waayo laakiin markaad intaad ii jawaabin ka hor qaab waxaad ila ahayd dabiici ah qof geemka diyaar u ah inay maanta dhan baashaasha rabto aa ila ahayd laakiin markaa ii jawaabtay wixii ka dambeeyey xoogaa barkintana waad ku dhegtay qalbigaad u dhaweynaysa sida macnaa qof inuu wadnaha ka soo dhici rabo ceshanayso oo kale no fiiri adigaa ku soo dira caawa bakaashka sirey wallahi qof soo dirta mala abaayo laakiin indhahaaga wallahi markii aan qof kasta fiiriyo qof kasta oo binaadan indhahaaga markii uu fiiriyo cashir ayuu ka qaadanayaa macalinka wuxuu dhahaa cilmiga ha lagu dhigay aqliga kaasho indhahaaga wa rabbul ciza way isbedeleen way gaduteen seriously ها انا ما انا ولي بالوضع استعباشا ولي لما دهن فيري وحنا سمسا ولي لما دهن هبينكي دفرتا ولي لما دهن indhahaga markii aad soo galaysa aadi ahayn way cadaayeen hatta intaan su'aasha ku weydiin koor laakiin hadda wallahi indhaha way guduteen abaayo macnaha waxay ila noqotay culays adiga ku saarnaa caawa markii aniga waxaad ii sheegtay kadib inuu kaa degayo kale qof nafistay ama qofay u baahneed hab markii ay siiso camala ila noqoto wallahi bilaa abaayo markaa ku weydiiyey wixii ka dambeeyey niyo naga daa waxaane geemka moodanaa hadda su-aasheeda waa kaaga jawaaba malayna waa noo socdaa su-aasha marka halka marka ugu dambeysa waxaan ku weydiiyaa hadda intaadan ma wadanaa geemka intaadan dhin ka hor bishimahaaga qaleelay ahaayeen qofka markuu wax arrinta aan uu sheegayo qofka markuu wax ku weyn sheegayo bishimihiisa qaleelay noqda qof kasta fiiri qof kasta oo noloshiisa wax ka sheegayo markii waxa la weydiiyo percentage 70% ay run yihiin 30na mala camal ay ku jirto bishimaha way ka qalaan hadda wax yaraan ku weydiin rabo intaas bishimaha carabka aada marin ka hor laakiin wixii aan rabay waa iga jawaabta sababtoo ah carabkaad bishimahaaga marisay
inay qalaleena iyo caddaatay bishimahaaga sax maaho way qalaleen sooma bishimaha soo isku weydiin idagayso niyahow ha iyo maya hadalkaaga inaba caadi ma ha iyo maya ha iyo maya idagayso ani bishimahayga mas-uulka ma tihidi hadday qalalay haddii kale shaqada iska daaye baraanki ma igu wada waaba kaa shakiye aba baranki ma ahan aniga hadda fiir waxaa laygu xantaa in aniga iyo wiilo iyo wax naga dhexeeyana laygu xantaa dadka inta badan aniga waa ka jaahil bixiyaa qaabka caawa u hadashay iyo qaabka aniga ugu jaahil bixinaya markii tusaale ahaan muuqaaladaas lis arkeeno waxa u dhexeeya farqi aad u weyn saaxiib caadi ah iyo wax saaxiibtinimo ka badan isku miisaan ma noqon karaan kiilo iyo 2 kiilo isku miisaan qofka dhahana hadda idagayso hadda adiga wiil wax ma kaala dhexeeyo wiilo wax igala dhexeeya haba yaraatee ma jirto mana igala dhexeyn doonaan hayahe okay iyada oo saas tahay haddana 24 hours waxaan arkaa tiktoka labadiina oo la isku kiin wado oo la isku kiin xamanaayo ay ma dhihi karnaa marka waxbaa dadka dalahooda miyaan rumaysan karnaa aragtida goorma isku dambaysa macnaa goorma isku dambaysa hadda dhow isku kaay dambaysa intaana gameka soo gelin 3 maalmood oo dhalatay oo dhamatay wiil misa isheeda ma saarin wallahi oo billahi oo tallahi hadda islama shaqaysiin aniga jaag wada shaqaa naga dhexaysa shaqayna naga dhexaysa وأساس شقينا ويلا الآن تبغى يوتيوب عم صوري تبغى الآن تبي صدق يوتيوب إسكلا شقينا صدق يوتيوب not حتى only one ما 3 يوتيوب أكواد شقينا سو هدانا ما أنت إسأركين بريو إسأركينا خصب واحد ويا مركي برنجو كوكو سمينا هاي أوكي هاي أصحابتي بس ليه سوق على باب جاي ما يبقى فري والله فري هاي حملنا يا سؤالها جواب قلتي لاست جيم أمروينا أوكي ما يا أصحابتي كان لاست جيم أبكرتينا guushana adiga qaaday waxaan caawa ku qirayaa in aan ciyaaray mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badnaa inta aan ciyaaray TikTok waxaan caawa qancisay 100 qof adiga kugu xirnaa anigana igu xirnaa Soomaali Joker cusubna inuu imaado sabnaa ku taaganahay sabnaa horta waxaan leeyahay thank you so much maadaama ay dad badan su'aalay rabeen in la iweydiiyo ayada ay ma aragtay guushaas keentay thank you so much alle abaayo waa mahadsan tahay ayadana laga yaabo dadka su'aasha sugaa inay ku jirteen soo ayada laftirkeeda inay qanacadaan rajaynayaan ما شاء الله mid caloofaa la ana aan turjumo in qof korkiisa tuma jacday torki mucjisada lahaa mucjiso wata wax kasto dhacay ilaahay wuu ogeysiiyay macnaha qaabkay ku sameynayeen marka qof inuu korkiisa tuma jaclo marka qofku adduunka ugu jeclaa ku salaama soo dhaam taqana hay taawaniya هاي قفكو أدريد وجعليها واي ساسو كعما وضحها عبدي thank you لا إن أديات قفك استو الصومالي هنجعلان لها قفك ولا الكيس إن أعاويه صومالي جوكر هداي هديد قروح بدن بعض إيسو درتي وأنا إسكسي بحدي حقا سؤال بان وضي كامتين قلبي أقفك بالعدك لقى حسوستها قعنت واسك قفل واو شريف thank you so much ما أنفع الديارة داك غطات ما دا الأرين أنت كسو دعين أنا والله الديارة دا إيقا قصارت شريفو ديارة دا سوا إيقا قصارت يقسو علي أي تربان اللي يسود رادة ضمير تربان ضمير كقالوا وايه ضمير كقالوا وايه وحكا لواي ضمير وكجرا معاه يا در maxay soo dalbatay ciyaarto ku haayay maxaa ciyaartu way socotaa dhaaf maxaa adaa soo dalbatay meesha isaaraya kulay soo dalban qadka dhankiisa waay boqortoodii qof ah Soomaali Joker sabna Fais Adey عبدي thank you so much إلان عاجي أبا إذا قالي والسلامة هاي كي هو حيسو درو كي في صنايو هاي ولا شرط لما تابن كريه وحنا قبحنا أوكي عبد بري إلى غير كسية بروموتر أمارة Soomaali Joker لاست منت كان ربعني يا كلنا وايس ده طبعا سجال سدح تضل لح أفر سدح لابو ويدا ماتي يا إما هذا بتقع أنا هرتادي يا إما هذه